munaasabad ballaaran oo si heersare ah loo soo agaasimay isla markaana ay xilka kula kala wareegayeen badhasaabka cusub ee gobolka Daadmareer iyo badhasaabkii hore iyo waliba labada ku xigeen ayaa maanta ka qabsoontay howlka shirarka ee gobolka waxaana munaasabadaasi ka soo qayb galay agaasimaha gobolada iyo degmooyinka wasaaradda arrimaha gudaha maayirka degmada Oodweyne madaxda laamaha dawladda uqaal qurbajoog iyo waliba bulshada qaybaheeda kala duwan waxaana ugu horeyn madashaasi xil wareejinta hadallo soo dhaweyn iyo sagootin isugu jira ka soo jeediyay maayirka degmada Oodweyne Cabdixakiin Nuur Muuse isla markaana madaxdii hore uga mahad celiyay waqtiga ay soo wada shaqaynayeen isagoo maayirku mas'uuliyiinta cusubna soo dhaweeyay isla markaana ballan qaaday inuu garab taagan yahay Chief Caaqil Mataan Xaaji Xuseen Chief Caaqil Axmed Xuseen Libaax taliyaha qaybta booliiska gobolka Daadmareer Mahad Maxamed Shaqalle waxgarad haween iyo waliba dhalinyaro oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa dhammaantoodba soo dhaweeyay badhasaabka iyo ku xigeenka cusub isla markaana Ilaahay uga baryay inuu xilkaasi u fududeeyo waxay sidoo kale ammaan iyo ducaba ku sagootiyeen madaxdii hore ee maanta xilka wareejinaysay gudoomiyaha xilka wareejinayay Jamaal Xuseen Hurre ayaa isaguna si qoto dheer uga warramay waxyaabihii uu qabsoomay muddadii ay xilkaasi hayeen isaga iyo ku xigeenkiisa Faarax Cabdullaahi Xasan isla markaana xilka ku soo dhaweeyay gudoomiyaha cusub Cali Cabdi Cawil iyo ku xigeenkiisa Maxamuud Cali Axmed oo xilkaasi loo igmaday gudoomiye waxaan kugu soo dhaweynayaa gobol ballaaran gobolka Daadmareer waxaanu annaguna u ballan qaadnay markii gobolka aanu nimid inaanu seerayaasha iyo dhuxusha iyo nabadgelyadaba aanu xoojinno waxa kale oo aanu ka qayb qaadanay qaaran uruntii wadada gudoomiyaha hore hawsha uu qabtay aad iyo aad baan ugu sii ammaanayaa waxa ujeedadu ay tahay sidee wax loo qabanaya qura meeshayna raaco sideen wax u qabanaynaa waa inakoo isku tashanna agaasimaha degmooyinka iyo gobolada ee wasaaradda arrimaha gudaha Maxamed Cali oo hadalka soo afmeeray ayaa halkaasi si rasmi ah xilkaasi ugu kala wareejiyay madaxda maanta la sagooteeyay iyo kuwa la soo dhaweynayay ugu dambeyntiina ururka dhalinyarada oo daawo ayaa halkaasi shahaado sharafeed iyo ku sagootiyay gudoomiyaha iyo ku xigeenka maanta xilka wareejinayay geesta kale markii ay soo idlaatay munaasabada xil wareejinta ahi ayaa gudoomiyaha cusub ee gobolka Daadmareer Cali Cawil Cabdi iyo maayirka degmada Oodweyne Cabdixakiin Nuur Muuse waxay si wada jir qalab ciyaareed uga gudoomeen madar xirsi oo kamid ah qurbajoogta ka soo jeeda gobolka Daadmareer kaasi oo sheegay inuu ugu talagalay labada kooxood ee isugu soo baxa kama dambaysta koobka bisha Ramadaan waxayna mas'uuliyiintani master madar ku ammaaneen dadaalka iyo isxilqaanka uu muujiyay dhalinta ciyaaraha oo ay ku tilmaameen mid ku dayasho mudan waxayna intaasi kadib madaxdani qalabkaasi si rasmi ah ugu wareejiyeen isuduwaha wasaaradda dhalinta iyo ciyaaraha ee gobolka Daadmareer Khalid Axmed Xaaji oo isagu ku sugnaa Muuse Salebaan Maxamed telefishinka qaranka Soomaaliland magaalada Oodweyne.